dawladda Kenya ayaa ka soo horjeesatay dalabkii dawladda federaalka ee in loo soo gacan geliyo wasiirka amniga ee dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Tifo ayaa inoo haya faahfaahinta warka. dawladda dalkaasi Kenya ayaa jawaab ka bixisay dalabkii uga yimid dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ka uu ku aadanaa in dawladda Soomaaliya loo soo gacan geliyo wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo baxsad ka ah gacanta dawladda Soomaaliya. sida lagu shaaciyay wargeyska ugu afka dheer dalkaasi Kenya ee Daily Nation, Janan waxa uu degan yahay hotel ku yaala magaalada Mandera, isla markaana hay-adaha amniga ee dalkaasi Kenya ay ku ilaaliyaan 24 saac la soo dhaafay isaga iyo ciidamo gaar ah oo wato. waxaana uu lagu arkay duleedka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. sidoo kale wargeyska Daily Nation waxa uu shaaciyay in xiriirka labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya oo horay uusan u ahayn mid wanaagsan oo soo xigeysan karo in uu sii xumaado sababo la xiriira arinta la xiriirta Cabdirashiid Janan. wargeyska oo soo xiganaya xoghayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Macharia Kamau waxa uu sheegay in Kenya aysan go'aamin karin in dawladda Soomaaliya loo gacan geliyo wasiir Janan. xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in arinta la xiriirta Cabdirashiid Janan ay go'aamin karaan kaliya ciidamada amniga iyagana ay tahay in lagala xiriiro. hadalkan ka soo baxay xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya waxa uu ku soo aadaya xilli toddobaadkii hore dawladda Soomaaliya ay Kenya iyo booliiska caalamiga ah Interpol ay ka dalbatay gacan u soo dhigita wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. wasiirka amniga ee Jubbaland ayaana waa goob uu kaga xirnaa magaalada Muqdisho ka baxsaday isagoo markii dambe gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland kadibna uu ka sii aaday dalkaasi Kenya inkastoo markii dambe dib ugu soo laabtay dhulka ay ka arrimiso maamulka Jubbaland. si gaar ah waxaa la sheegay inuu ku sugan yahay gobolka Gedo qaybo ka mid ah. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gedo ahna madaxa amniga gobolkaas Ismaan Nuur Xaaji Macalimo oo boqolaal askari oo ka tirsan ciidamadii dawladda ay dhawaan geysay gobolkaasi Gedo kula hadlayay magaalada Balad Xaawo ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ee ku sugan Balad Xaawo la doonayay inay markaasi fuliyaan howlgallo kala duwan oo la xiriira dhanka amniga. waxa uu sheegay in amniga guud ahaan deegaanada gobolkaasi Gedo ay yihiin mid wanaagsan waxaana ciidamada kula dardaarmay inay fuliyaan amarka ka soo baxa madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay in ciidamadan ay ka mid yihiin kuwa dawladda Soomaaliya. waxa uu soo hadal qaaday fargelin la sheegay in dawladda Kenya ay ku hayso qaybo ka mid ah gobolkaasi Gedo waxa uu ku hanjabay haddii dawladda Kenya ay joojiyayso fargelintaas ciidamada dawladda Soomaaliya uu ku amrayo sida uu sheegay inay ka soo casheeyaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. amarka aad fulinaysaan waa amarka dawladda lama raba marka wax kale oo jirin in lagu darsado. waxaa tiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed degmada Badaxa oo shacabka degan waad aragteen markaan hadda imaanisay dawladdu u jecel yihiin noo soo dhaweeyeen. waxaa laga rabaa waxa xasilinta aad u tiin waa degmada shacabka jooga inaad mas'uul ka tiin inaan xabad lagu dhex ridin cid ku ridaysa inaad tilaabo ka qaataan. waxaan idin sheegayaa ciidankan nimanka hadda Madeero dhex galay hala weeraro dawladda ma soo amrin annagana ma amrin. hadda dawladda hala weeraro wala meedan tir annaga meedan ruura hala weeraro saaki ayagoo magaalada bil ka qaata oo maxaan ku raaddaa ay qaadkooda iyo qashinkooda waxooda ka gata soo saldhig xabad kuma aysan bilaabin magacmaha laga laabtay waad la dirteen waad ka disheen labana waad ka dhaawacdeen. waxaa hadda dariiska leen kugu dhiibi maaha ayaga kaligood maaha. degmada Balaxa waxa gacanta ku hay dawladda Soomaaliya adinkaana mas'uul kaga ma leedin ku dabagalay mar dambe taliyihiina la weydiinaya. waxaa laga rabaa amarka la weydiiyay inaad qaadataan. Kenya waxaan u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku gabanaya oo maxaan ku raaddaa ka soo arbushay saldhigga Balad Xaawo sax ma ahan arintaas. madaxda Kenya haday ku ogtahay waxaan sameyn doonaa in halkan ka arbusna anaga. madaxda Kenya waxaan sameyn doonaa hadii arbushkaas ay amar ka qaadan waydo inaan halkan ka arbusnaan sameyn doonaa haday amarka fulin waydo. waxaan ugu digaynaa dawladda Kenya daris baan nahay waxaan ilaalinaynaa wanaaga waxaan ilaalinaynaa nidaamka ilaalisa in saldhiggeeda noogala soo baxa oo nagala soo arbusho ma yeelin waxaan u dul qaadanaynaa ma aha. Kenya daris baan nahay darisnimada ilaalisa haday ilaalin waydo waxaan amriyaa ciidankan inay Nairobi ka casheeyaan. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadii la soo dhaafay waxa ciidamo fara badan geysay degmooyin ka tirsan gobolka Gedo waxaana xusid mudan in dhammaan maamuladii ama gudoomiyaashii degmooyinka gobolkaasi Gedo ee dawladda federaalka Soomaaliya
taageero weyn ka heleen islamarkaana ay sheegeen in xilligaa wixii ka dambeeya ay ka mid yihiin dowladda federaalka soomaaliya halka markii hore ay markaasi taageero u ahaayeen dowlad goboleedka jubbaland waxaana arrintan ka taagan gobolka gado ay dhalisay walaac fara badan waxayna u muuqataa in dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolkaas ay haatan sheegayaan inay hoos tagaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya islamarkaana ay kasoo horjeedaan maamulkii oo ka tirsanaa uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam axmed madoobe wasiir janan ayaa faahfaahiyay xiisada ka jirta degmada beled xaawo ee gobolka gado iyo dhaqdhaqaaqyo halkaasi ka socda dabaasho ayaa inoo haya warsoo saaraheena duur wasiirka amniga maamulkaasi jubbaland cabdirashiid xasan cabdi nuur janan ayaa markii ugu horreysay kasoo hormuuqday warbaahinta tan iyo markii uu ka baxsaday xabsiga ku yaalay magaalada muqdisho oo ku xirnaa masar janan wasiirka waxa uu marka hore faahfaahiyay xaaladda ka jirta beled xaawo iyo sidoo kale siduu kusoo baxsaday ugu horreyn waxa uu sharaxay sababta loo xiray halka lagu xiray iyo weliba shakhsiyaadka asaga xarigiisa ka dambeeyey asagoo sharxad dheeriya ka bixiyey ugu dambeyn sida ay ugu suurto gashay inuu xabsiga uu kasoo baxsado waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha ninkii sargaalkaa sare ahayo jarnaalka ahayo ka tirsanaa asluubta ciidanka asluubta soomaaliyeed inaana aniga bilkulliyanba hal maalin xabsi dawlad ay leedahay iyo station dawladeed xabsi ku yaallo ama xabsi dhexdo dawlad ay leedahay iyo xarun dawladeed midnaba inaan arag waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo fog wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xiranahay shakhsiyaad yaroo kooban oo taliyaha nabsugidda qaranka fahad yaasiin kulane oo baawar aada u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyey aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadii naasa badan ee ku burburtay in raad badanoo ka mid ah ayoo ku shaqaynayo aragtida ii muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijkaas ka warqabay wuxuu ahaa saadiq joon oo ah jarnaal saadiq joon oo ah taliyihii qaybta gobolka banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan waa ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya lugna inuusan ku lahayn ummadda soomaaliyeed rabaa inaan u xaqiijiyo inuusan lugna ku lahayn dhibaatayntii 5 bilood la imariyey meel aan ku xiranahay iyo wax lee haysta midnaba uusan ka warqabin ra-iisul wasaaraha dalka sidoo kale wasiir janan ayaa shirkiisa jaraa'id uu ku qabtay beled xaabo waxa uu kaga hadlay ciidamada faraha badan ee dowladda soomaaliya kusoo daabulaysa gobolka gado islamarkaan waxa uu sheegay in wixii cawaaqib ah ee ka dhashay amni darro ay dowladda qaadayso gobolka gado oo ciidamadan la keenay degmooyinkii amniga ahaa oo nabadda ahaa oo 2011 la xoreeyey oo cadowga laga fogeeyey oo nabadda haysatay waxaa hadda dhacday in magaalada degmada luuq oo kale cakaaro oo xarada ciidanka ay ka shayso oo magaalada gudaheedii ah istaalkeeda in shabaab daawo ka rartaan sababtuna ay tahay raggii ilaalinayay oo yaqaanay oo cadowga meesha uu soo marahayay yaqaanay iyo systemkay wax ku ilaalin dhowrkii cishay ugu dambeysay dowladda federaalka soomaaliya ayaa diyaarado ciidan waxay ku daabasho gobolkaasi gado inkastoo dhaqdhaqaaqyo ciidan ee xaalad cabsi ay ka jirto degmada beled xaabe ee gobolkaasi gado halkaas ay suurtagal ay tahay waqti walba inay ku dagaalamaan ciidamo daacadda wasiir janan iyo weliba ciidamadii dowladda federaalka soomaaliya ee geysay degmada beled xaabe ee gobolkaasi wasiirka amniga maamulkaasi jubbaland cabdirashiid xasan cabdi nuur janan ayaa ka baxsaday halkuu ku xirnaa 28 bishii tagtay ee janaayo sanadkan waxaana maalmo kadib uu tagay kismaayo isagoo kaga sii gudbin nairobi ugu dambeyn abaabul dagaal ayuu ka wadaa gobolkaasi gado gaar ahaan degmada beled xaabo oo hadda uu ku sugan yahay dowladda Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan waxay ka muujinaysaa shirweynaha uu iclaamiyay madaxweynaha maamulka Puntland Cali Xasan Cali ayaa inoo haya faahfaahinta warka wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayr Maareey oo xalay ka qayb galayay barnaamij gaar ah oo looga hadlayay waxqabadka dowladda ee 3 sano ee la soo dhaafay ayaa soo hadal qaaday arrimo ku saabsan shirka uu dhawaan ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Maareey ayaa sheegay in dowladda federaalka ay soo dhaweynayso shirkaasi oo ah mid guud ahaan wada tashi ah sidoo kale waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in ay shirkan ka soo bixi doonaan natiijooyin muhiim ah oo waxtar u leh ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland wasiirka warfaafinta oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay madaxweyne Dani inuu ka shaqeeyo midnimada iyo horumarka dalka isla markaana uu muujiyo tanaasul
anigu isma lihi way go-ayaan sababtoo ah waxdan ahoo ugu jirta dadka iyo dalka Soomaaliyeed guud ahaan iyo Puntland toonna in maragtay Soomaalidu kala googoodo waxdan ay kuma jirto cid aqbalaysana male oo Somaliland baa muddo waday oo ilaa haddana aanay ku khasaartay marka Puntlandna way aragtaa marka ismalihi waxay inta ishraan bay dhahayaan waa Soomaaliya ka go'nay malisbiili dadka uu yeeray runtii madaxweynuhu u yeerayna hadee waa dad wada qiimo leh oo dhaqanka oo Puntland runtii hoggaan weyn ah ay ku jiraan marka waxa is leeyahay talo wanaagsan baa ka soo bixi doonta oo hadda waxyaalaha aan ka hadlayo dadka Soomaaliyeed kala qaybsanaanta inay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli uu jiro khilaaf xoogan oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland kaas oo muddo dheer soo jiitamayay jimcihii aan soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweynaha Puntland oo ay dhinac taagan yihiin golihiisa wasiirada uu iclaamiyay shir looga hadlayo aayaha maamulkaasi kaas oo uu ku marti qaaday xildhibaano labada gole ee baarlamaanka ee kasoo jeeda deegaanada Puntland siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland shir madaxeedka Afrika ayaa maanta ka furmay Addis Ababa iyo madaxweyne Farmaajo oo shirkaasi ka qayb galaya Maxamed Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta warka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxaa si rasmi ah uga furmay shirka 33aad ee madaxda dawladda iyo sidoo kale dalalka ku midaysan midowga Afrika shirkani ayaa socon doona inta u dhaxaysa 9 maanta ah ilaa 10 bisha February waxaana lagaga arrinsan doonaa dib u habaynta hay'adaha midowga Afrika hirgelinta aaga ganacsiga xorta ah ee qaradda xoojinta arrimaha nabadda iyo amniga ee dalalka midowga Afrika iyo doorashada madaxweynaha cusub ee midowga Afrika ee sanadka 2020 shirkani ayaa waxaa dawladda Soomaaliya uga qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo iyadoo oo gelinka dambe ee shalay gaaray magaalada Addis ee caasimadda dalkaasi Itoobiya sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu kulan yeelan doonaa madaxda heer qaaradeed mas'uuliyiin sarsare iyo hoggaanka hay'adaha iyo ururka caalamiga ah ee ka qayb galaya shirka meertada 33aad ee midowga Afrika kaasi oo ka dhici doona kaasi oo ka socda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaana lagaga arrinsan doonaa arrimaha qaaradda iyo horumarka arrimaha ugu badan ee dalalka ku midaysan qaaradda Afrika oo shirkani ay kaga arrinsan doonaan waxaana shirkani oo soo dhamaan doonaa 10 bisha February ee bishaan ku guda jirnay February faahfaahinta ayaa waxay ka soo baxaysaa muwaadin Soomaaliyeed oo toorey lagu dilay dalka Koonfur Afrika muwaadinkan Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow goob ganacsi uu ku lahaa deegaanka Irish oo u dhow xaafadda Belfield ee magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika dilka muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Cabdulle Gacal ayaa yimid kadib markii agagaarka goobtiisa ganacsi ay dhalinyaro Koonfur Afrikaan ah ee ka bilaabeen fowdo iyo inay dhagaxaan ku tuuraan goobaha ganacsiga isla markaana uu ku soo baxay hayeeshee dood dheer kadib dhalinyaradii ay toorey ka galiyeen luqunta mid ka mid ah Soomaalida ee ku nool xaafadda Irish ayaa sheegay in Cabdiqaadir Cabdulle Gacal uu soo gaaray dhaawac culus hayeeshee ugu dambeyn uu u geeriyooday ee dhaawacaasi waxa ay ahayd abaare 10:00 habeenimo marxuum Gacal waxa ay murmeen dhalinyaro fowdo iyo tuuryo ku waday dukaankiisa oo ku yaala xaafadda ay dadka midabka ahi degan yihiin ee Irish oo masaafo ahaan sidaas uga fogeen u jirta magaalada Cape Town markii uu isiiray banaanka u baxna ay iska xanaano ciyaalka ayuu ka warhelay toorey kaga dhacday luqunta isla markaana waxa loola cararay isbitaalka ayuu yiri qof ku sugan Koonfur Afrika oo sida falka u dhacay ka sheekeynayay ragii ka dambeeyay dilka ayaa goobta ka baxsaday waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in ciidamada booliiska Koonfur Afrika ay wadaan baaritaano la xiriira dadkii ka dambeeyay falkaasi dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ugu badan ee Soomaalida loogu geysto dhibaatooyinka kala duwan waxaana dalka ku sugan Soomaali u badan ganacsato oo markasta la dilo lana boobo
hantidooda. dhowaan ayaa dowladda Soomaaliya waxay safiir cusub u magacaawday dalkaasi Koonfur Afrika, waxaana jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi ay ka dalbadeen in uu madaxda dalka kala hadlo dhibaatooyinka lagu hayo.